waxaa nasiib xumo ah qof walba inuu qol iska soo furto oo khaasatan dhanka diinta marka imaado nin walba diinta inuu si walba sidii rabo u gadgadiyo oo dhulka ku walaaqo oo qashan mariyo oo wasaqeeyo oo 400 qofood oo like iyo share ay siinayso oo leedahay waa quraacsan ahay maxaa yeelay wuxuu ku leeyahay quraan ba aaminsanahay xadiis iyo meelaha laga keenay bukhari yaa waaye albani shiinas waaye aniga waa albaniyan waaye aniga waxaas ima gashay aniga quraanka mooyee wax kale imraay ma lahan qof walba wax arkaysaa hadda maanta ma arkayso qof ka hadlaya wadnaha si loo qolo oo Soomaalidu oo dhan inay qol soo furtaan maanta wadnaha ka hadlaya si loo qolo iyo dhibaatooyinka cudurada uu leeyahay maxaa yeelay may way qanaan inay ka hadli karin maanta qof ka hadlaya sarta Dubai si loo dhisay mitir cirka uu marayo si loo dhisay iyo asaaskiisa iyo qof ka hadla ma leh maxaa dhacay rag ba special u ahaayeen rag ba khabiir intaas la ka shaqeynayeen oo maanta dhiseen maxaa yeelay awood ku heshid ma lahan laakiin diinta imaado nin walba الله أكبر أرسل مالذ محا هيستا نيول بإنه قول صفرته أو دينته بهدلا يا بابي إن أذهروا إله كعشوا قرآن كان دينتا رقبة إنده أبيلين رقبة لباتن سنة صدن سنة أو دينتا آخرنا يعني عالم كوه أنا أنقاري كرن رقاسة بهدلا رقاسة كنت تمنسى بالله عليك دينتا وحواية بهدلات ما أنا هكوعي عيارن دين تقفل بنو كهلا معهن هذا سؤال أقبت الدين تويدي لك هذه قولها فرنن وحالا ما لا يعني كهلا محايا لي هذا العرب كان إنه إلا إما إنه كوجي تتواتن سنة جنة مش لو قال عيو جنة إنه كوجيو أما إن تتواتن سنة ماله صعنا النار إنه كوجيو هذا يتكلم دور نساء عرب كان إلى القرآن يقول هاي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ماشي ساري واحد بقرعيان هذا لايك إن شير عربتي برنفتو بحث لوكا لو قلنا لو متر زيرو وحتى ملان marka halka ku hadlays ilaali diintan dad ba expert iyo khibrad lahayo oo naftood iyo xoolahood ay galiyeeno ayaga wadi adiga qolha furan maxay yeelay qol qiimo ku leeyahay malahan imma ina dambi ku dhacay mooyee faa'iido kama helaysid wallahi diinta ragga u dhaaf qof walba taqtarka wadnaha kan caloosha kan maskaxda kan diinta wala kala baxnin walba meel uu khibrad ku yahayo qof walba booskiisa u dhaaf insha Allah taala marka meel kale hada dhicin insha Allah biidna taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh